soo jeedka habeenkii waxa uu khilaafsan yahay sunnaha uu eebbe ugu talagalay bini'aadanka. waxa uu eebbe quraankiisa marar badan ku sheegay inuu maalinta ugu talagalay inay dadku xoogsadaan oo ay dhaqdhaqaaqaan, halka habeenkiina uu ugu talagalay inay nastaan oo ay seexdaan. balse fikradaha qaldan ee dadka qaar aaminsan yihiin ayaa ah haddii uu qofku habeenkii soo jeedo maalintiina uu hurdo inay ku filan tahay oo uu helayo faa'iidadii uu ka helayay hurdada habeenkii. balse dhageysta, arrintani sax maaha. daraasado badan oo laga diyaariyay arrintan ayaa waxaa la arkay in qofka bini'aadanka ah jidhkiisu aanu isku si u shaqaynin habeenkii iyo maalintii. maadaama habeenkii loogu talagalay nasasho iyo hurdo, ayaa waxa unugyo badan oo jidhka ka tirsan waxa uu eebbe ku borogaraamiyey amase uu ugu talagalay inay shaqada yareeyaan ama ay hakiyaan, halka ay xubnaha qaarna yareeyaan wax soo saarkooda sida qanjidhada soo daaya hormoonada iyo dheecaanada jidhku uu u baahan yahay. arrintani maalintii way ka soo horjeedaa oo qaybo badan oo nasanayay habeenkii ayaa la howlgeliyaa. sidaasi darteedna hurdada maalintii ma gudi karto amase lama mid aha midda habeenkii. dadka habeenkii shaqeeya amase soo jeeda waxay la kulmaan dhibaatooyin ka dhasha culayska ay saarayaan jidhkooda oo u baahan nasasho. hurdadu waxay kobcisaa difaaca jidhka, waxayna awood dheeraad ah iyo firfircooni siisaa unugyada jidhka ee eebbe ugu talagalay inay ka hortagaan waxyaabaha jeermiska ah. sidaas darteedna soo jeedka amase hurdo la-aanta joogtada ahi waxay keentaa in qofka jidhkiisu uu iska difaaci kari waayo xanuunadaasi. hurdadu waxay yaraysaa miisaanka qofka. waxay cilmi baarayaashu arkeen in 30% dadka soo jeeda ay uga halis badan yihiin dhinaca buurnida amase miisaankooda oo kordha kuwa seexda. taasna waxaa lala xidhiidhinayaa in hurdayaridu ay yarayso maadada loo yaqaano leptin oo qofka dareensiisa dharaga. waxa kale oo ay hurdayaraantu kordhisaa maadada loo yaqaano herlin oo ah hormoonka dareensiiya dadka gaajada. hurdadu waxay kordhisaa caafimaadka iyo dareenka maskaxda. qofka soo jeedaana waxa uu dareemaa subaxii deganaansho la-aan iyo inuu si sahlan u xanaaqi karo maadaama ay dareemadiisu kacsan yihiin oo habeenkii oo dhan ay shaqaynayeen. haddaba haddii uu qofku barto amase uu caadaysto soo jeedka, waxay keeni kartaa arrintani niyad jab, diiqad iyo walwal. waxaana lagu ogaaday daraasad lagu sameeyey dadka laga daweeyey xanuunka diiqadda oo la ogaaday inaanay badankoodu helin hurdo ku filan amase ay caadaysteen soo jeedka. hurdadu waxay ka hortagtaa sonkorta iyo kaadi macaanka. waxaa la arkay dadka inta badan soo jeeda inay halis ugu jiraan cudurka macaanka noociisa 2, taas oo ka dhalata wareer ku yimaada qaabka jidhku uu xakameeyo amase uu uga hortago oo uu u kantaroolo sonkorta cuntada laga helo. soo jeedku waxa uu ragga iyo dumarkaba si isku mid ah u yareeyaa hormoonada u xilsaaran tarmidda. haddii uu qofku soo jeedka joogteeyana waxay dhakhaatiirtu ka digaan in qofka ay madhalaysnimo ku timaado, taas oo ka dhalata khalkhal ku yimaada hormoonada. haddaba dhageyste, haddii aad ka mid tahay dadka habeenkii soo jeeda, waxa uu barnaamijku kugula talinayaa inaad ku dadaashid sidii aad u heli lahayd hurdo kugu filan habeenkii adigoo ka fogaanaya waxyaabaha kugu keeni kara soo jeedka. waxaa laga yaabaa inaad aaminsan tahay inaad u baahan tahay saacado kooban oo hurdo ah oo aad soo jeedi kartid habeenkii, subaxiina aad shaqo tegi kartid. balse ogow dhageyste, taasi waa dhibaato aad ku keenaysid jidhkaaga oo dhici karta inay mar dambe kugu soo baxdo.